نص دعية أنت متعرفين walaalnimo dhaadhacday oo isfahan dheeraaday baa jacayl ugu dhaliyay oo dharaarahan ruuxda iyo qalbiga ku soo dhawaa haddana kuma dhacaynaan ku dhiibo xaqiiqado waxaan dib u diidayaa xiriirkeennii dhisnaa inuu dheeliyo marqudha dhankaagana waan hubaa inuu dhabdhab ku hayee sidaan uga dhuuntay baad ka dhowraysaa afkoo dhegteedu wax kaama maqal asalaamu calaykum asxaabtu waa inay salaameen laba adduunka ka joogtaa marka hore channelka subscribe like comment share intaas waa dhiirigelin saa u aragteen bilowda fiidiyowga maanta waxaa inay wada lamaane aad iyo aad ugu farxay wallahi ana inta badan midiyaha ma daawado hadda markaan arko aad baa ugu farxay Xabso Maxamed Macalin iyo Abshir Aadan Maxamed marka wallahi bilaa lamaanahan dadka an kana xadadkan waxaan isdhahay alla gabadha way yartaa tiirka ma la geey doonaa dadka qaarna waxay dhahayeen ha ninkan sirdoon waaye wax baa loo soo diray ay gabadha yarta wax ma loo soo diray allah wallahi billahi maxkamadda Soomaaliya wax fiican baa sameeyeen Abshir Aadan Maxamed iyo Xabse Maxamed Macalin hadaaba xurnimo aad siiseen jaceelkii kor aad u qaadeen nolosheeda aad dhisteen xitaa waxa la dhahay lacag ay nolol ku dhistaan ay ku shaqeystaan xitaa waa سيء ولا واحد وناقصين بالسمية أصحابته دلنيرت لما أنا هنجرك همبلي هلا سكر أنت سأنيك عصنا إن همبلي وسكر لما أنا هنجرك وغازا مرك سون دبادة الحمد لله وفر أحسن هاي محكمة بس إنه شرفتي وأنا حاسس كي هرنوبة نصي وفر أحسن هاي الحمد لله waxaa u mahadcelinayaa dadkii arrintan ka qayb galay oo noo soo rigeliyay inay noo fuliyaan marka dawladana si wanaagsan noo soo dhaweysay oo ku faraxsanahay dadkii arrintan hayst oo kala hayst waxaa ka faa'iideystaan fursadan oo hadda idin muuqato ani xaaskayga hornimada waa la siiyay oo ku faraxsanahay marka dawladan ugu mahadcelinayaa qofkii arrinta aan haystana waxaa la rabaa inuu fursadan ka faa'iideysto oo macnaha sidii reerkiisa u dhumidoobi lahaa waxaa waa inuu arrintaas ka fikiro u imaado dawladda si wanaagsan lagu soo dhaweynayo nimanka saaxiibada oo anoo kale ahaa waxaa fariinta u diray macnaha inay ka faa'iideystaan fursadan oo hadda si aan hadda ii soo dhawo kale loo soo dhaweynayo ayagan waxaa la rabaa inay fursadan si fiican ugu faa'iideystaan oo inta imaadaan saas adiga noloshii shalay aan ku jiro nolosha maanta hadda aan ku jiro waa kala duwan yihiin nolosha hadda aan ku jiro waa nolol fiican oo maasha Allah oo wax walba ku dheehan waaye islaamnimo ku dheehan marka tii shalayna tii oo doorka lagu jiro waxaana تانا ku faraxsanahay وكاسا أصحابت شرفت بدن لمانها قرنيجا الملسو كوبي كرو لمانها يا أرسنال إيو محلي جري يا ملسو sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo bogaadiyo oo halkaan uga faa'iideysto maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay waan idinku bogaadinaa hawshan aad qabateen waan idinku dhiirigelinaa sidoo kale fursadan helay walaalkay Abshir waa nin dhalinyaro ah in muddo ahna qolooyinka cadawga ah la shaqeysanay waxyaabaha loo sheegay oo asiga noo sheegayna waxa kamid ah in maaragtay la maran habaabiyay oo loo sheegay meel aan islaamnimo ka jirin in la dagaalamayo halkan wuxuu indhihiisa ku arkay in islaamnimo jirto in horumar jiro in dawladnimo jirto arkay maxkamadda iyo wasaaradda gaashaandhigaba oo kaashanaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka shaqeeyaan in cadawgu ay jab u geystaan nooc kasta ay ahaadaan sidaas si la mid ahna waxay ka shaqeeyaan cadawga kuwa ka soo baxa ee raba horumarka dalka iyo dadka gaaray inay la tiigsadaan sidaan oo kale garab ay u siiyaan oo warqabaan u doonaan cadawga dhexdiisa uga soo bixiyaan taas macnaheedu waxa tahay maxkamaddu inay wax tooga karto waxna noolay karto waa inay jaceelna sameey karto lana xisaabtami karto cadawga meel walba ay joogaan waxaan idin leenahay cadawga ka soo taga oraxda ka soo taga maalin kasta waxaad ku jirtaan in
xabado idinku dhacdo oo xabadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo droneskooda iyo diyaaradahoodaba ay idinku dhacaan oo aad ka orodaan waxaad heli kartaa noloshaas aanta waxaad heli kartaa noloshaas ka fiican waxaanu ku wareejin doonaa oo senatarkiisana uu ku wareejin doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo waxa uu ku dhisan lahaa aqalkiisa biri uu ku noolaan lahaa waxaa laga warqabi doonaa noloshiisa waxaa laga warqabi doonaa shaqadiisa. asxaabta sharafta badan waa kaas hadda lamaanihii waa lasoo fasaxay xornimo way heleen maasha Allah hambaliyo comment iyo dhan hambaliyo laga soo dhigo kulan dambe xiisa la farxadana ka faa'iideysan waaye.